السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتنا داونيس waxaad naga daawanaysiin waa walaweyn films haddaad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar gambaleelkana furo si video walba anaga aan soo dhigno ku soo gaaro asxaabta garbahayga fadhiya aad u jeediin cid kale ma ahan waa asxaabta laf dhawarka marna waa walaweyn films asxaabta ay ku taagan tahay amaba haddaad maqasheen walaweyn films cid kale ma ahan waa intaan oo meeshaan fadhiso ninkan garabkayga fadhiyo waa kaamiristaha walaweyn films ninkaas dhaxda ku jiro waa abwaanka ninkaas kalena waaba ogtihiin waa atooraha ama actorka walaweyn films ya adna sidaad iga barateen waa jilayga ama marna wariyaha u qaabilsan walaweyn films asxaabay maanta waa maalin farxadeed waa maalintii munaasabada ciidul adha ee maalinteedii koowaad ay ku astaysan tahay taariikhdana 11 bisha Agoosto 2019 asxaabay magacayga horta aan iskiin baro magacaygu waa Cabdi Axmed Mataan oo loo yaqaano Cabdi Yar Aqalka ninkan garabkayga fadhiyana magaciisa asiga idin sheegi doono aan ku bilaabo horta ugu horeen kaamiristaha ku soo dhawow walaweyn film waa mahadsan tahay Cabdiyow Arafat ciid wanaagsan magacaygu waa Asad Maxamuud Macalin aqalka waa mahadsan tahay dadka inta badan waxay isweydiiyaan bahda walaweyn films kaamiristaha ninka u qaabilsan manin ugu imaado magaalada Muqdisho kaamirada ya markaad haysid sida isku tii wallahi aniga degmadeyda waan ku dhashtay daafeed ama walaweyn saad u taqaaniin wallahi waxaan igu dhiirgeliyay ninkan inta fadhiyo abwaanka wallahi ninkan maxad maanta halkan aniga joogo asiga ay gaarsiiyay okay kaamirada ma dhaxalad u leedahay mise waa wax adiga aad habigaaga ahaa inaad kaamirista noqotid ma ku hamin jirto waligaaga maya wallahi hamigay kuma jirin kaamirista ayaa noqonaysa balse laakiin markaan oo saaxiibkayga oo Muqdisho ka imaaday abwaanka asaa igu dhiirgeliyay ma kaamirista bas aad ka tahay mise mujaajaladana mararka qaar waa gashaa wallahi dhankay ku imaado marka kaamirista ay marna mujaajilista hayno okay waa mahadsan tahay waxaan sii gudbi doonaa marna abwaanka ruuxiga bahda walaweyn films abwaane ku soo dhawow bahda walaweyn films ciid wanaagsan marka hore ciidul caafiyaad mubaarak waa mahadsan tahay aqalka waa dhawahay okay abwaane maxaa kugu dhiirgeliyay in aad bahdan walaweyn films aad soo aasastid aaskeeda waxa la sheegay in adiga aad leedahay waa mahadsan tahay aqalka runaantii fikirkan wuxuu igu dhashay anoo Muqdisho joogo markaan arkay wiilal oo yacni iskoolka isla dhigano oo YouTube channel samaystay oo hore u socdo oo magacoodii cirka galay sidaas darteed anigana waxaan go'aansaday dadka ku dhaqan degmadeyda inaan soo saaro oo yacni aan ka dhigo dad yacni wax qabsan karo oo hore u socon karo okay waad mahadsan tahay abwaane marka arintaa markii soo galaysay oo aad soo abaabuleysay caqabad intee leeg ayaa kala kulantay runantii caqabado badan waan la kulmay oo ah yacni marka bulshadeena haddii xaqiiqda laga hadlo in yar baa barnaamijkan taqaanay soo marka inaan yacni wiilasha asxaabteyda isku keeno oo barnaamijkan u sheego runantii iyaga markaa aniga u bandhigay waxay ku noqotay waxyaabo oo cajiib ah laakiin bacda shida wa tacab waxa waaye maanta heerkaan taagannahay okay inta kale dadka waxay isweydiiyaan abwaanka waa mu'allif oo sameeyo dhanka iyo heesaha marka dhanka iyo heesahana sida isku tihiin wallahi uma badnay laakiin waxa waaye mararka qaar ma ku turtaa waa gashataa okay abwaane waxaa la sheegay inta badan in adiga ka dambaysid walaweyn films aasideeda marka walaweyn films aasideeda ma hore u dhisneed mise wax adiga dad kasoo hore u dhisnaa oo dadkeeda ka tagay miya mise adiga soo alifto soo aasastay waa mahadsan tahay waa su'aal muhiim ah runtii YouTube-kan walaweyn films aniga aasay waxaan u aasay si oo yacni qof walba reer walaweyn ah oo degmadan ku nool maxaa la yiraahdaa يعني ودريمي لها إن يجران دت talented أو كرتله أو دقمة يعني وحو قوان كرو يجونا معنا إن وقت يدو جانس كأيه يعني إنك فائدستان إن أنا جانا فكرة دهس كلها
saad sheegtay fikradda oo Walaweyn Films aasaasideeda adigaa lahayd, marka ma jiraan dad garab kaa siiyey aas-aasitaanka Walaweyn Films? way jiraan asxaabteyda ka mid ah oo garbeyga fadhisa iyo inta kala maqan la-aantooda waxba ma hirgaleen soo maahan. Okay, baxda horta Walaweyn Films ma intaan unbaa mise waa in kaloo kasii badan? maasha allah wallaahi waa la badan yahay, waxaa waaye aada loo badan yahay. asxaabta kale way maqan yihiin, safar shaqay ku maqan yihiin. insha allah goor dhownaa inay na soo gaaraan aan rajaynayna. Ma asxaabta kala maqan inama iyo gabdho may iskula jiraan mise waa wiilal keligood? wallaahi kulley waa wiilal keliya. gabdhahan insha allah waxaan rajaynaynaa goor dhow inay iyagana nagu soo biiri doonaan. Okay, waxaa la sheegaa in gabdho oo ka tirsan Walaweyn Films ay waxbarasho u jiraan dhanka iyo Muqdisho, maxaa ka jira arrintaas? wallaahi way jiraan maasha allah. haddana waxa waaye kulley iyagana way maqan yihiin. way fiicnaan lahayd haddii nala joogi lahaayeen, laakiin waxbarashay ku maqan yihiin. insha allah iyagana goor dhow inayna soo gaaraan aan rajaynaynaa. Okay, waa mahadsan. waxaan usii gudbi doonaa dhanka iyo ninka actarka u ah ama atooraha saad u taqaaniinba. soo dhawow, magacaaga saddexan adigoo ku hadlaya. magacayga waa Farxan Cabdullaahi Xasan oo ku magac dheer Dooli Yare. Okay, saan ogsoonahay Dooli Yare waxaa tahay actarka u qaabilsan dhanka iyo jirinta adiga atoornimada. marka adiga Walaweyn Films ku soo biiraysay ma markii ugu horeysa aad jilin matashaa mise in badan ayaa hawshan kusoo dhex jirtay? maya wallaahi markii igu horeyso oo Walaweyn Films aan kusoo biiro. marka yaa kugu dhiirgeliyay inaad Walaweyn Films aad kusoo biirtid kana mid noqotid tiimka matalaya Walaweyn Films? wallaahi waxaa igu dhiirgeliyay abwaankii Cabdiqani Maxamed. Okay, abwaanka ayaa kugu dhiirgeliyay. marka sidaad u aragtaa marka mujaajalada aad ku dhex jirtid aad matalaysid qof actar ah oo codka bulshada matalaya aad tahay, maxaad dareen ah aad ku galo? dareenka noocaas dareen noocee ayaad dareentaa markaad jilaysid? wallaahi dareen walba waan dareemaa oo dareen farxad leh oo Okay, dareen farxad leh ayaad dareentaa actarka oo kooxda aad tahay mise? waxaana actarka oo kooxda Walaweyn Films. Okay, saad sheegtay actarka Walaweyn Films ayaa tahay. ma jiraan wax caqabado oo ka hor imaaday intaad ku dhex jirtay mujaajalada oo riwaayadaha qaar aad soo jishiin? caqabado oo ka hor imaaday ma jiraan? maya wallaahi aqoonda ma iga rumaanin. Okay, marka mujaajalada markaad soo jilaysiin fikrad ahaan fikradda yaad ka heshiin? ma abwaan idin gaar ah oo idin soo jiro oo idin dhiibo ma jiro? maya abwaankii waa midkan Cabdiqani Maxamed. abwaanka waa ninka soo aasaasay kooxda Walaweyn Films asaleyna riwaayadaha idin dhiibo sooma? Okay, waad mahadsantihiin. mar labaad waxaan kusoo laaban doonaa ninka dhinacayga midigta fadhiya ahna marna kaamiristaha. kusoo dhawow mar labaad. asadow, maxaad ka leedahay maanta? waa maalin munaasabadeed oo maalin farxadeed, yaad halkan ka salaami lahayd? kooxdiinana intaan way kasii badan tahay la sheegay inta badan, yaa halkan ka salaami lahayd? wallaahi awalan ciid mubaarak kulli caam wa antum bikhayr yaa muslim all. meel kastay joogaan dal iyo dibadda waan salaamayaa. waxaan halkan ka salaamayaa abwaankayga marna saaxiibkayga ah Cabdiqani Maxamed Xasan iyo bahda Walaweyn Films waan salaamayaa. waxaan halkan salaan ugu dirayaa saaxiibkayga Cumraani oo joogo wana daawado Sacuudi, gaar ahaan Abha ayaa jooga saaxiibkayna salaan ugu diraa. Okay, anagana salaan taas la mid ah ayaan hawada u marsiin doonaa. waxaan filaynaa inaad salaantaasina gaari doonto. abwaan ayaa 2 iyo 1 halkan ka salaami lahayd. waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii yaad salaami lahayd oo maxaad ummadda ku dhaqan bulshada Walaweyn maxaad ugu baaqi lahayd inay iyagana waxtarka soo kordhaya ee Walaweyn kusoo kordhaya? hadda waxaa la sheegaa in sistemo cusub ay wadanka kusoo biireen. maxaad ula talin lahayd dadweynaha ku dhaqan degmada Walaweyn? waa mahadsan tahay.
marka hore halkan waxaan ka salaamayaa Soomaali idilkeed meel walba joogaan salaamintiin waxaan si gaar ah u salaamayaa waalidiinteyda iyo asxaabteyda bahda Walweyn Films bulshada reer Walweyn aad u salaamayaa waxaan ugu baaqayaa dadkayga in ay dunidu way horumartay in horumarka lala jaan qaado aanan anagu ahayn yani dad mar walba meeshooda jooga aan noqono dad yani meeshii maanta joogaan bari ka dheerayn kara meel kale gaari kara ama santa aad iyo aad ayaad u mahadsantahay waxaan halkan ugu sii gudbayaa dooliyar hal iyo laba yaad salaami lahayd wallaahi halkan waxaan ka salaami lahay Cabduqani Maxmed oo abwaankii Asad Maxmed waxaan halkan ka salaami lahay Cabdi Axmed Mataan salaantaas lamid ah ku soo marinaya waad mahadsantahay asxaabtaan aad u jeediin waa Walweyn Films marna asxaabta idinbada u taagay in Walweyn Films ay soo aas-aasanto oo waliba ay sare u qaadaan haddana waxaan halkan kusoo gabagabeyn doonaa barnaamijkan la yeelanay bahda Walweyn Films inta badan asxaabtooda ay kala maqan tahay balse waxaan jaanis u helnay maanta inaan laf dhabarkooda ahna marka miristaha marna abwaankooda actorka saddexda ugu laf dhabarka ah inaan halkan ku wareysano ayaa nasiib u yeelanay maanta waadna ku mahadsantihiin daawashadiina habboon ninkan idinla hadlaya aad u jeediin mar labaadna idinku celsho waa Cabdiyare Caaqilka tan iyo kulanto dambe oo xiiso leh Walweyn Films oo isku duuban waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh